dagaalka waddanka Suudaan iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan magaalada Khartoum iyo weliba gobolka waqooyiga Darfur gaar ahaan magaalada Al-Fashir ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa dagaalada culus ee ka socda magaalada Khartoum in ay ku wajahan yihiin gacan ku haynta xarunta madaxtooyada ee bartamaha magaalada Khartoum ku taal halkaasi oo ciidamada RSF la sheegay in ay ku mitidayaan gacan ku haynta goobtaasi muhiimka ah inkastoo RSF laga qabsaday deegaano kala duwan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta magaalada Khartoum haddana waxaa la sheegayaa in ay xoogga saarayaan sidii qasriga madaxtooyada gacantooda ay ugu jiri lahayd saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadlay hogaamiyaha ciidamada RSF Maxamed Hamdan Dagalo kaasi oo sheegay in ciidankiisu ay xoogga saari doonaan sidii ay ugu mitidi lahaayeen xarunta madaxtooyada waxaana sidoo kale uu sheegay in aysan ciidankoodu inaba haba yaraatee niyadjab ka qabina dagaalka waxaa kaloo uu sheegay in dagaalkan uu yahay mid ay qorsheynayaan in ay si buuxda gacanta uga dhigaan magaalada Khartoum oo u muuqata haatan in lagu loolamayo wixii warar ah ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo xagga Ukraine aynu qoraansanno iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan gobolka Kriski ee ku yaala galbeedka waddanka Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegayaa in ciidamada Ukraine ay dareemayaan in si weyn looga gacan sarreeyo dagaalka inkastoo aysan jirin meel ay ka baxaan oo la hareereeyay tani waxay ka dambeysay kadib markii Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu wacd ku maray in si buuxda gobolkaasi loo xoreyn doono militariga Ruushka ayaa sheegaya in 86% gacanta ay ku hayaan gobolkan oo dhul aad u fara badan Ukraine ay ka qabsatay bishii August ee sanadkii aynu ka soo gudubnay markaasi oo weerar lama filaan ah ciidamada Ukraine ay ku qaadeen gobolkaasi haddaba khibrada maxay ka tari arrintan qabiir Colonel Hatim Al-Fallahi oo arrimaha militariga ka faallooda ayaa waxa uu ka hadlayaa dagaaladii ugu dambeeyay gaar ahaan xaaladda ciidanka Ukraine waxaana qabiirka uu sheegayaa in xaalad adag imika ay soo food saaraysa ciidamadii Ukraine maadaama ay gacanta ku hayaan dhul yar oo ka mid ah dhulkii ay horey u qabsadeen isla markaasna ay lumiyeen inta badan saldhigyadoodii kadib weerar culus oo ragaal celin ah oo Ruushku soo qaaday ciidanka Ukraine ayaa waxa ay dagaal xooggan ka wadaan duleedka gobolka iyagoo wajahaya kuwa Ruushka waxaa la sheegayaa in sidoo kale la tilmaamay in ciidamada Ukraine ay adag tahay inay dib isku qaabeeyaan isla markaasna ay adeegsadaan qalabkooda culus qabiirka arrimaha militariga iyo dhanka istiraatiijiyadda Colonel Hatim Al-Fallahi ayaa farta ku fiiqay in xaaladda dhabta ee dagaalka ay muujinayso in Ukraine si tartiib ah ay go'doon u galayso gaar ahaan ciidankooda ku sugan gobolkaasi iyadoo Ruushkan uu xoojiyay duqeymaha xagga cirka taasi oo ka hor istaagtay xitaa ciidamada Ukraine in ay ka tallaabaan xadka oo ay baxsadaan qabiirka militariga ayaa xusay in hogaamiyaasha Ruushku ay sheegeen in ka bixitaanka Kriska ay tahay iyadoo qalabka culus ciidamada Ruushka ciidamada Ukraine aan loo ogolayn inay isticmaalaan iyo in halkaasi ay ka baxaan dhinaca kale ciidamada Ukraine ayaa qirtay in ay ka baxeen qaar ka mid ah fariisimadoodii iyagoo ku tala jira inay dib isku qaabeeyaan Al-Fallahi waxa uu sheegayaa in Kiev ay ku adag tahay xaaladdan isla markaasna sidii horey ay filaysay ay ka sii adkaanayso waxa uu xusay in Ukraine ay ciidamo aad u fara badan u dirtay gobolka Kriski halkaasi oo Ruushku dagaalka la sheegay inay u tala galashay inay ka mashquuliso sida laga soo xigtay warbixinada dhanka militariga basaaraha ciidanka Ukraine ee ka dagaalamaya halkaasi ayaa waxa la sheegayaa in uu gaaray 37,000 oo askari oo la dilay isla markaasna waxa la burburiyay boqolaal taangiya iyo gaadiidka dagaalka ee gaashaaman ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa inay la soo diristay qalab la'aan iyadoo xulafada reer galbeedku aysan awoodin in ay si buuxda halkaasi u geeyaan qalabka waxaana warku intaas ku darayaa in aysan suurtagal ahayn in Ukraine ciidamo ragaal celin halkaasi ay geyso ama ay ku taageerto ciidankeeda ku go'doonsan gobolkaasi iyadoo Mareykanku uu hakeeyay taageeradii siinayay Ukraine ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa xaaladda inay sii adkaysay gaar ahaan dhanka gantaalada iyo barnaamijyada la xiriira nidaamka difaaca Ruushkan waxa la sheegayaa inuu adeegsanayo qalab casri ah dhinaca kale wadamada reer Yurub ayaa muddooyinka la soo dhaafay waxay wadeen qorshe Britain iyo Mareykanku ay horboodayaan oo waa qorshe Faransiiska iyo Britain ay horboodayaan oo ku aadan
in ciidamo la geeyo Ukraine arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah wadamada reer Yurub aysan ku qanacsaneen haddaba war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa waxaa lagu sheegay in inkastoo Talyaanigu uu la shaqayn doono wadamada gobolka isla markaasna uu aaminsan yahay amniga Ukraine inuu yahay mid markaasi muhiim u ah amniga Yurub haddana waxaa la sheegay in Talyaanigu meesha ay ka saareen inay ka qayb qaadanayaan howlgal military oo ciidamo ka socda Yurub lagu geeyo Ukraine arrintan ayaa waxaa loo qaatay inay tahay mid Talyaanigu kaga biyadiidsan yahay hindisaha Britain iyo Faransiiska ee ah in ciidamo halkaasi la geeyo Meloni waxay xaqiijisay baa layiri in Talyaanigu aanu doonayn in uu sii wada shaqaynta wadamada Yurub iyo reer galbeedka ee ah in ciidamo halkaasi la geeyo horay ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa xilli uu martigelinayay madaxda Yurub waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si buuxda looga hortago Putin oo uu sheegay inuu qatar ku yahay amniga guud ee Yurub arrintan ayaa waxaa la sheegayaa inay saameyn weyn ku yeelanayso sababtuna waxay tahay wadamo badan oo reer Yurub ah ayaa arrintan u guuxayn marka waxaa leeyahay cabsida ugu weyn waxay tahay dagaalka oo laga cabsi qabo markaas inuu ballaarto ruushka hore waxay u sheegeen inaysan sinaba ku aqbali doonin in ciidamo ka socda reer Yurub halkaasi la geeyo waxaana ay ku tilmaameen qadkii casa oo laga gudbay inkastoo Talyaanigu uu dib uga gortay arrintan haddana dhowr wadan oo kale ayaa soo qadimay oo sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgalkaasi waxaana ka mid ah Denmark Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa weli inay sii wado xadgudubyada ka dhanka ah xabad joojinta aan cagaha adag ku taagnayn marayka Gaza waxaa wararka ugu dambeeyay sidoo kale ka mid ah in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku wargeliyay ergada Israa'iil ee ka qayb qaadanaysa wadahadallada Dooxa in markaas halkaasi ay ku sii sugnaadaan oo aysan soo bixin arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku soo aadayso xilli wadahadallada la isku marlayahay Xamaas waxay ku dhigan tahay mowqifkeedii hore oo ah in loo gudbo wejiga labaad ee heshiiska rasaas joojinta waxay kaloo soo jeedisay xitaa inay diyaar u tahay wadaxaajoodka inay diyaar u tahay inay sii dayso mid ka mid ah maxaabiista dhalashada Mareykanka haysta iyo inay wareejiso 4 meydad ah oo ka mid ah maxaabiistii ku dhimatay marayka Gaza laakiin dhanka Israa'iil iyo Mareykanka waxa la sheegayaa in ay arrintan weli ka cagajiidayaan haddaba xalay barnaamijyo aad u ballaaran ayaa ka dhacay gudaha Israa'iil waxa laga soo horjeedaa tilaabooyinka la xiriira Israa'iil iyo waliba qorshaha dagaalka marada u raxaya Netanyahu uu doonayo dagaalka inuu wado haddaba wararka ugu dambeeya waxa kamid ah barnaamijyadan ayaa waxa la sheegayaa inay ka dhaceen meelo kala duwan magaalada Tel Aviv ayaa la isku soo baxay waxaana la sheegayaa dad aad u fara badan oo ilaa 10,000 oo qof ah in Tel Aviv ay barnaamijhan dhigan waxaana ka soo horjeedaan dagaalka iyagoo taageeraya isdhaafsiga maxaabiista wargeyska iyo dicooda axrnad ayaa waxa uu sheegayaa in qiyaastii 10,000 oo barnaamijyaasha ah inay iskugu yimaadeen wadada lagu magacaabo Pegin ee ku taal bartamaha Tel Aviv wargeysku waxa uu xusay in qoysaska dadka lagu haysto marayka Gaza ay barnaamijhan ka qayb qaadanayeen sidoo kale wargeysku waxa uu sheegay in dibadbaxayaashu ay halkaasi ka dhageysteen qodbado waxaana la sheegayaa in ugu baaqeen xukuumadda Netanyahu in ay si degdeg ah u joojiso dagaalka marada ay u raxayso isla markaasna ka shaqeysa maxaabiista sidii markaasi la isku dhaafsan lahaa ra'iisul wasaare Netanyahu adiga iyo xukuumaddaada waxaad rabtaan in aad bilowdaan wejiga xigay ee dagaalka halka aad ka fulin lahaydeen wejiga xigay heshiiska aad saxiixdeen ayaa uu yiri mid ka mid ah dibadbaxayaasha oo saxaafadda la hadlay waxay sheegeen oo kale in Xamaas ay diyaar u tahay heshiiska Trump wuxuu rabaa yiraahdeen heshiiska balse xoogaga burburka doonaya waa Israa'iiliyiinta iyagoo markaasna qorshahooda ay tahay in aysan kala jeclayn maxaabiista lagu haysto marayka Gaza waxay leeyihiin maxaabiista ayaa iska leh doorka koowaad ee waa in la soo daaciyaa sabtidii Netanyahu ayaa shir wuxuu la yeeshay golaha wasiirada iyo madaxda hay'adaha ammaanka si ay u qaabeeyaan go'aamada la xiriira wejiga xigay ee heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo dagaalka dib in loogu laabto wararkan waxay sheegayaan in gudaha Israa'iil weli ay ka taagan tahay ismarinwaaga la xiriira dagaalka dib in loogu laabto Netanyahu waxa la sheegayaa xitaa inuu miiska soo saaray qorshe ah in weerar kooban laga bilaabo marayka Gaza si Xamaas cadaadis loo saaro waa sida warbaahinta Israa'iil ay hadalka u dhigayso ma jiro war rasmi ah oo dhanka Xamaas ka soo baxay marka laga reebo in ay cambaaraysay weeraradii shalay Israa'iil ku qaaday dad Falastiiniin ah ilaa 10 qof gaaraya oo lagu dilay Baytalaahiya sida wararka ugu dambeeya haatan ay sheegayaan